masaajidka rawda ee ku yaala koonfurta Minneapolis uu buuxi jiray xilliga adanka salaada jimco kasta shalayse waxaa ka muuqday firaaqo kadib dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday New Zealand. Arrintan ayaa loo qaatay in dadku ay dib isugu dhigeen iyagoo isweydiinaya in maanta masaajidka laga akhrin doono khudbad iyo in guryaha lagu tukan doono. Si kastaba maamulka masaajidka dadaal uu sameeyay ayay ku keeneen boolis, kadibna shacabka ayaa yimid masaajidka iyaga oo foojigan. imaamka masaajidka Sheekh Cabdirasaaq Sancaani ayaan weydiiyey waxa ay farayaan shacabka iyo dadaalka ay muujiyeen ilaa iyo hadda. muslimiinta runtii waxa la gudboon masaajidda wadamadan qarbiga ku yaala inta xadar ziyaada la qaato. dadka maaragtay xaq jirka ah way badan yihiin maanta. waxa jira maaragtay madax la doortay sadogtahay oo afkaaraha xaq jirnimada yani ka shaqo cod ku raadinaya oo yani buunbuuninaya. waxa jira dadka waalan waa isku daydaan qof markuu action sameeyo actionkaasi maaragtay wuxuu yani motivation iyo siinaya baraarujin siinaya in kala badan oo waalan buu baraarujinaya. marka masaajidda waxa laga rabaa inay dadka community-ga isu yimaadaan oo yani asbaabihii lagu ilaalin lahaa dadka muslimiinta in maaragtay la gaaro waa laga maarmaan ama security hubaysan la keeno ama jamaacada qaar ka mid ah ay ayaamaha inta xiisada jirto ilaa 2 qof 3 qof oo aan tukanayn ayaga dadkana ilaaliyaan runtii xalalka culimada qaarkood soo jeediyeen bay ka mid tahay. marka waxaan rajaynaynaa in arrintan ay baraarujin noo noqoto. gudoomiyaha degmada lixaad ee Minneapolis Cabdi Warsame oo kamid ahaa dadkii ku soo tukaday shalay masaajidka ayaa wuxuu ii sheegay inuu la hadlay taliyaha booliska ee magaalada Minneapolis kana codsaday in ilaalo gaar ah loo sameeyo masaajidada. mid labaad anaku waxaan nahay mujtamac muslim ah oo ku dhaxnool dad muslimiin ahaan waxaana jirto dhibaatooyin fara badan oo marar anaka xataa masaajidna la ka gubaa jirto magaalada Bloomington. masaajido wax lagu qorqoraa jiro hanjabaad baa jirto. waxaan rabnaa shacabka horta markuu warsan inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga gaar ahaan booliiska magaalooyinkooda. anigu hadda xalayto waa la hadlay maxaa lahaa police chiefka magaalada Minneapolis oo waxaana iyo sheriffka iyo waxaana uu amarnay inay ruundo ka sameeyaan masaajidada kana warhayaan. salaadii jimcaha kadib ayaan iyagana mikrofoonka la dhex qaaday qaar kamid ah dadweynihii ku soo tukaday oo qaarkood ii sheegay xitaa inay caruurtoodii ka soo tageen oo ay soo kaxin jireen aalaaba maalmaha jimcaha ah. marka runta ku sheego xataa aniga maanta waxaan dareemayay masaajidka ma soo gali doonaa marka imaatid baaniyadeeda ku jirtay waan baqa xataa cunugeyga yarkaaba wuxuu yiri ka masaajidka geewan ka baqa waxaan yiri hadda inta masaajidka saacadan geysid oo sidii masaajidka saas oo kale la soo galo waa dhibaato badan weey markaas oo kale wuxuu yiri ka masaajidka geebu yiri marka waxaan yiri ma ku dhihin arinta daraadid kuma gan uu yar yahay 3 sano jira laakiin waan ka soo tagaanaa niyadeeda waxa ku jira aniga ogaa islaamka ah inay ogaadaan masaajidada iyo qataraha soo kordhay oo dadkan xaq shirka ah in masaajidada la ilaaliyo. maanta waa aragnaa magaalada Minneapolis masaajidada dhan waxay ilaalinayaan booliis waayo waxay keentay in ay taxadarno waxay keentay in dadku ay fadhiga ka kacaan waxay keentay in qof kasta oo de masaajidka maadaama beedka Ilaahay ku cibaadaysanaa jimcada ama Ramadaanka nagu socoto inaan ka feejignaano dadkan xaq jirka ah. magacayga waa Cabdullaahi Cabdilcasiis oo jooga ku nool Minneapolis Minnesota. maanta markaan u soo soconay masaajidka arintii ka dhacday New Zealand aad baan ugu xumaanay. mid xigtana shacbiyadina waxaa iska gashay wax la yiraahdo cabsi. marka waxaan rajaynaynaa in laga taxadaro amaankana la sugo.